Mrs. Wad ilaahay amarkiisa haddii idin dhaw xalay tool Mrs. Wada ku riyooday. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان أصحابتي دخاليقا ملك استودون كاد جوجتان وأنيقو إيمان مني مخلق العصب وحسل على عزك ما أنت أصحابتا سيدا عوانكو واسكو سواركتن مخلقين واسيدا سيدي يس مركا أصحاب تورتا وربادنا الله هامو بيحش وحاربنا إن أنك بيحنو رياكشن هاستا لدهايو إن أنكو برتا لي أبوري ورتا هاستا سيدي إنكستو أي تهاي خلد أما الدنبي لأس كده إنكستو الدنبي أي تهاي قفك بين آدم معناها قفك أديك إنجوي أو كنا خنيسد ملقو أبوري صاحب إنكستو هست دنبي أي تهي لكن waxaan rabnaa inaan reaction ka bixino ama aan heesta city dadka challenge ku soo sameeyeen in aan reaction ka bixino anyway ina fahanteena marana okay marka hore TikTok aan tageena horta TikTok waxa soo dhigay ciwaanka Shalu Habi Shalu intaan ka salaama Shalu qurux maalin diyaaradaada waxay ku degan tahay Turkiga ku degan tahay waa kula socdaan fahanti marka enjoy ata marka heestaanid waxa soo sameeyeen 755 qofood واو الله يعزك مركا waxaan arabnaa inta heesta soo sameeyeen inaan reaction ka bixino okay marka ugu horeeyo Shalu waan tageynaa amarkiisa inaan ku bartaalay abuuray Shalu heesta si inaba caadi ahayn ugu jaastay wiilkaasi soo qabta okay wiilkan soo qabanayna amarkiisa inaan ku bartaalay abuuray horta jaaskeeda caadi ma aha inaba qabku ciyaarayso macnaha wal ma ku jirto ma fahanti inaan ku bartaalay abuuray ay taagan tahay والله ويلكاسيت مسو خبو كرنا مفهمتي مفهمونه ادي كومنتي ان كسو خبين مشي انان ku barta lay abuuri cabas aan fahmin maanti okay inaan ku barta lay abuuri dadka dhan soo qabanayo sababtoo ee focus ku jira ama shucaaca ku jira okay next one kuwin amarkiisa والله بلا تلااتي aad ugu xumaan mas aad ugu faraxsanahay inkasto shaashada wiil la soo saartay wiilkan qof kale ma jeste badii meesha la soo saartay waxa waaye indhaha ka dayma macnaha heesta la iska dhageyso ma fahantii inaan ku bartaalay abuuray والله بلا wax oo hees noo soo qaado ama inaan ku bartaalay abuuray waxna soo dhaho ilaa noo saal okay next one xauna boqorada isteelka amarkiisa horta qoftaanid waxaan la yaabay macnaha eeydoo dhanba waxa waay jabi degan waa hadda heesta si u qaadooso degnaan inaan ku bartaalay abuuray ninka xitaa farta lagu baaqo aan fahanti wiilka xitaa waa laga wataabano inaan ku bartaalay abuuray amarkiisa inaan ku bartaalay abuuray واو الله يعزك next one شوشو عبد الله كويرتاج مسز وباع horta ma sha Allah labadan gabdha aad ay qurxayeen ma kala dhacaan fahanti شوشو عبد الله an كويرتاج ما شاء الله heestana ay ka bisku qaadeen dadka meeshii wiil ay soo wadanayeen oo ay dhahayeen inaan ku bartaalay abuure ama wiil soo qabanaya labadan ay ka enjoy iska dhigeen fahanti ma sha Allah 35,000 oo loo fay Allah يعزك next one Mrs. Wad ilaahay amarkiisa haddii idin dhaw xalay tool Mrs. Wada ku riyooday macna wax kale ma guriyoonaya si qadar loo fisirin sababtoo caadi waxa iska riyay ama wadanka jooga amal macna oo ani ayadoo wada kulumni muuqaal isla duubni waliba YouTube aan wada sheekaysanay taas laan ku riyooday faan dadka qaar oo waa riyood markii dhaw meel kale hadalka la geeni waa riyood miniskeeda waxaan ka wadaa
si asxaabnimo ama ani ayadoo muuqaal isla duweyno aan ku riyooday wax kale loo maleynaya reer faarta iga ilaaliya inaan ku bartaan lay abuuray inaan ku bartaan okay Sumaya qurux gabadhaanayti waa aqaana kii hore waxaas ahay Shishu Cabdal iyo Queen Ritaaj haddana waxa waaye Mrs Ward iyo Sumaya qurux wow okay next one haddana ayada la miyaan kabax okay maadaama hadda Mrs Ward kaligeed ay soo sameysay recommendation gelina mar indhaan ku xadeena inna alla caabudo ayaa la abuuray okay maxumo gabadhan wallahi waa qalbi wanaxa ma baahanayn xariis uma baahna caay iyo nabad waxun ka sheegtaan abay okay ku sal nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam maxaa jiro wax laga sheegayo qofiye adiga dhaqan cilin lagu geeyay okay kale iga soo bixi okay hawa recommend will comment musu qorin okay afar qofood oo soo sameeyeen koowaad waxa waaye Shaalu waaye kan labaad waxa waaye Cuna iyo Queen okay saddexdoodu marka afartooda yaa ugu shidan sorry inaan ilaahay caabudo la abuur heesta dhan dadka waxa waaye si idin sheega waaye dood ay qabaan heestaaniti macnaha dambi waaye aan dhihi karaa inkastoo heesta sideedaba banaanba dambi ay tahay laakiin heesooyinka qaara meesha uu galay macnaha boontiyaalku uu galay khalad aad u weyn waaye macnaha ma qurux badno in erayadaasi la isticmaalo sida hadda ka hor heestu qamar suugaani qaadi oo kaleete heestaasi inuu ku soo caan baxay oo malana heestaasi taa shiiqyaal badan way ka hadleen heestaasi dambi waaye dhan inkastoo hees sideeda dambi ay tahay laakiin erayaalkan qaar oo kaleete dambi aad u weyn waaye ma fiicna in la isticmaalo inkastoo heesta tik ay tahay okay gabarmaayo amarkiisa nabeeco inaan ku bartaalay abuuray inaan ku bartaalay abuuray inaan ku bartaalay okay saawjeedin gabarmaayo waxa waa caadi iyo wiil mar hore isku dambeeyay maanta hees la soo qaadan inkastoo waqti badan aan isku arkin marka inaba caadi ma ay kan soo sameeyaan kabax Mrs Ward ma soo qof kala waas قال إيه مسيس واد أما يقول لي لو بريك هرنا وايه يمني أم كو هذا مسيس واد هذا أنا كم إيه كانت عيو يا أنقلب زقبي هاي مسيس واد مو خالص كلاس لسمين ما جر لم مو خالص دح مو خالص لسمين أنا إجارت مسيس واد أنت وقفتها أنا وابياوية يا amarkiisa inaan adeeco inaan ku bartaalay abuuray Mrs Ward wax kale aan ku dhigi kar male laakiin enjoy la ilaahay ka dhigo okay yimani waakin aloo baay yimani inaan ku bartaalay abuuray yimani horta aad ugu xumaay saaxiibkii in uu ka horeeyo qofka macnaha oo heest oo loo qaaday inkastoo kor ajir adina hoos ajirto nijmo la maxay kartaa ade fiidooga ka dubto walaale fooda xaga dhagax la isu gumo walaale dhaaf aniga waxa horta yimani laagta ana iska qarxina faanta ana ku taa barada been sheegay marka enjoy ata inkastoo xabadaada kor ay jirto adna hoos ajirtid enjoy nimada ka mid tahay amarkiisa inaan adeeco inaan ku bartaalay abuuray Allah izig anyway asxaabta ugu dambeyn waxa waa hadda maadaama inta ugu badnaay kor Allah subhanahu arki amarkiisa inaan ku bartaalay abuuray okay Muhammad ma sha Allah gabadhan inta aad u qurux badan tahay ma khfaloori sheegtaa alluba ay falow ma biitahay inda isku xire guys khatab wabillahi tawfiiq waana ka baxay anyway hadda waxaan taginaa marka meesh u dambayso aan taginaa maadaama inta dadka ugu badan like-ta aan soo qaadan ama lofta ugu badan dadka aan soo qaadanay inkastoo dadka aad yaryihiin markaan kun ay gaaraynin oo 500 ay gaarayaan okay ya soo qaadan doona wiil mis gabar dhac gabadhan aan soo qaadanina
Najman beauty Allah Najman is beauty amarkiisa inuu ku bartaalay abuuray wow Najman beauty waa macnaha waa susuroon sama dhigi karaa jacayl xaweel ku jiifi enjoy la kala enjoy ka dhigay anyway asxaabta saamada aragno waxa waaye heesta inaan ku bartaalay abuur horta heesta inta waxaan maleynaa Sam wiil dhahay in uu qaaday heesta inaba caadi ma laakiin inkasto oo waxyaabo enjoy ay ku jirto laakiin heesta way iska sidantahay anyway asxaabta marka hadda muuqaalkan halkan aan ku soo goyn doonaa insha Allah muuqaalka xiga intaan ku wada kulmayno waxa idin kaga tagayaa bash barwaaqo caafimaad insha Allah bye